annaga hadaan reegal mudug waxa jira barnaamij aan u arkaanay inuu hagardaamo yahay laakiin dad iyo beeraleeya oo inta badan qudaarta noo soo dhoofi jiray iyo dalagyada waxay waa xoogaa in ay xataa ani waa isticmaalaan ma aqaan laakiin barnaamijka gal waxa in la yiraahdo galmudug waa meel dhagax ah oo dhul aad u qalalan iyaan la isku lugoyn beer iyo dhir iyo geed dadku waxay ka haystaan aragti dhawey ka haystaan laakiin geedku waa fogay aniga waxa ogaaday haddaad maanta damacday inaad guriga hortiisa geed ku beerto waa adoo wiil ku dhashay oo wiil koriyay oo kale wiil korimadiis waa masahlana kulanti wacan wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaad iyo Fagaaraha oo martin ugu yahay toddobaadkan Cabdinuur Ciise Cilmi oo ah hoggaanka guud ee ururada bilic soo celinta Galmudug waxaan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa waxqabadka ururka oo hoggaanka u yahay Cabdinuur waxyaabaha ay ka qabteen Galmudug in muddo ah oo ay shaqeynayeen Cabdinuur marka hore ku soo dhawaad barnaamijka Fiyaad iyo Fagaaraha bismillah alxamdulillah ودوهاي وريفياد وكدوهاي برنامجك فياد فقارها حقيقة وأنا كجا مهد علنا يا فرصة دقالقة يا عديسي سيوريسي كان كأمهم كأ وكدوهاي استوديو عبدالله وحنا ربعنا كبلا ومركور واحد وكانوا تهاي ورفراد بالعسوعين قلب بل ururadan maxay u taagan yihiin waa maasan tahay wariye Fiyaad waa su'aal aad u muhiim ah si guud markii aad aragtid magaca uu xambaarsan yahay ururkan waa dalada guud ee ururada bilic soo celinta iyo dhiraynta Galmudug waxaan ulajeedkeena iyo hadafkeena guud ahaa inaan gaarno Galmudug cagaaran si bulshadu ay u gaarto barwaaqo muhiimadda ururka loo asaasay baahiyo jira oo ay ugu horeyso xaalufida ku socota deegaanka nidaam guurka iyo dhirta oo la jarayo oo ay dadku ku baraarugsanayn in ay dhirtu tahay wax ku ool muhiim u ah deegaan bulshada degan tahay saas ayaa waxay noo dhalisay in aan sameeyno daladan guud ee lagu wacyigelinayo bulshada guud degmo walba hina aan dhalinyarta joogta iyo dadka bulshada deegaankaas aan ku wacyigelinayno in ay organization kan inta nagu la midoobaan ay ayagu ka qayb qaataan in aan dhirta la jarno la beero dhir sidaas ayaa u taagan yahay waayahay marka ururkan imisoo ka kooban yahay ama imisoo urur ka kooban ومحسن تهاي وريفياد ururkani si guud wuxuu ugu bilowday inaan ka dhisno markii hore degmooyinka qaar oo aan organization-ka heer degmo ka bacdina waxaan u daadajinay inaan degmo walba aan minbarro uga soo darno oo degmo walba ay dad ku matala oo dalada guud ka tirsan ay joogaan hadda maanta waxaan ku suganahay caasimadda dawladda Galmudug magaalada Dhuusamareeb waxyaalaha aan soo gaaray waxa kamid ah in aan kol horena sidoo kale to program aad adogeedina tibintiisa iyo dandiintiisa aad xogayso aan kulan weyn ku qabanay oo kulankii koowaad ahaa in aan dardar gelino kulankii labaad sidii looga wada qayb qaadan lahaa Galmudug cagaaran marka yaa in ka caawiya waxaan la soconaa in ay u baahan tahay arintan dad laga shidal qaato haday aan xagga dhaqaalaha aad iyo aad haday aan dhinac kasta ma cid in ka caawisa jirta mise waa wax uu idinka jeebkiina ma san tahay su'aalaydana in la dul istaago mudan ka organization ahaan maadaama aan hadda ahay hogaankii guud ee shaqadan dhaqaajinteeda waday asxaab fara badanna ay igula biireen oo barnaamijka ay la qaateen maadaama uu yahay barnaamijyada hadda la wado ugu muhiimsan in aan horta hore waan ku bilownay si iska qabsa oo anaga aan si volunteer ah ku raadinaynay inaan dadka wax fahmaya aan u sharaxno in anagu jeebkeena inta wax iska darna aan gadno 20 geed 10 geed 30 geed tusaale hadda aan sheekada kamid ah safarkii hore kulanka aan ku qabanay waxaan gadnay ilaa 60 geed waa ogeed kulankii hool midnimo dadka waxaan ku dhiirigelinay inay geedaha qaataan nagala soo qayb galay inay geedaha qaataan oo ay magaalada ku beeraan magaalada Dhuusamareeb
sidaasoo kaleeto 20 geed oo noo hartay ama 17 geed inay ahayd waxaan geynay madaxtooyada dowladda Galmudug oo markaas dhismihiidii uu marayay heer gabagaba ah dadka waxa laga yaabaa qaar inay isleeyihiin madaxtooyadu ayada wax laga rabay oo qof walba uu aad wax uga rabay saas la ajligeed aniga hataa waa u sheegay waxay yiraahdeen rag teamkii dalada igala tirsanaa bariis waxa xaggeeda wada waxaan ku yiri waxaan u wadaa maadaama aan arkay in madaxtooyadii ay dhireen ku socoto Galmudugna meelaha la rabo astaan qarana meelaha laga rabo laga fiirina ay tahay waxaan inta geed hadda aan hayno oo aan badnaynba waxaan ku dhiirigelinaynaa shaqada socota waxa ay fududaatay inaan tago madaxtooyada inaan geedihii ku beero waliba aan gacanteeda yarkii barnaamijka u xilsaarayo waday annagoo ka urbici soo celin ahaan daladii guud dhiirigelinayna xaqiiqdii hadda yarkii geedaha ku howlana wuxuu ii sheegay geedihii aan geynay inay meel hadda fiican bixitaankoodu marayaan waxa kale oo istusnayna waxay ahayd maadaama annaga ay naga go'an tahay inaan si volunteer ah aan ku wadno shaqadaan ah ku bilownay in aan ka bilowno marka hore meelaha danta guud oo tusaale waa ogtahay dadku markii bareefadka ay yihiin waxa laga yaabaa qof walba gurigiisa marka ku dhiirigeliso inuu asagu u dhaqaaqo laakiin meelaha danta guud waxa moodaa kaliya in lagu hadleeyo siyaasiga mudaxileedkiisu uu ka bilowdo waqtina uu ku ekaado oo laga yaabo asaguna ku mashquulsan hawlo kale marka sidaas aan ka dalad ahaan aan barnaamijyada hadda aan joogo caasimadda inaan drainti iyo cagaarintii inaan halka ka sii wadno muddada shaqada ku jirtaan maxaa iska bedelay ayaa is dhihi kartaa shaqada marka aad bilaabayseen wacyiga bulshada waa maasan tahay fiyaad xaqiiqdii waa wax weyn dadka waxa laga yaabaa horta geed dadku waxay ka haystaan aragti dhawey ka haystaan laakiin geedku waa fogyahay aniga waxaan ogaaday haddaad maanta damacday inaad gurigaan hortiisa geed ku beerto waa adoo wiil kuu dhashay oo wiil koriyey oo kaleeto wiil koriimadiisa waa ma sahlana geedku hadda waxaad maqashay madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu daahfuray Soomaaliya cagaaran ololaha Soomaaliya cagaaran annaga waxaan meeshan ku daafurnay markaad nala joogtay oo wasiir nagal soo qayb galeen Galmudug cagaaran waxa moodaa marka horta waxa wuxuu yiri la ag taagan yahay waxa la wadaadada marka quraanka ay qof ku jiraan quraanka akhriyaan waxay maqlaan waxa ugu fiican qofku waraysta tuftiini waa la aqbalay waxa moodaa hamigeeni markaan ayaan la soo daala dhacaynay waxay noo noqotay anaga dhiirigelin noo noqotay in madaxweynaha qaranku uu Soomaaliya cagaaran anagu boolan dhajinay bulshada soo keenay waxaan Galmudug cagaaran sidaas la ajligeed madaxweynaha qaranka wuxuu abuuray geedkii ugu horeeyay waxa ku xigsaday madaxweynaha dowladda Galmudug oo asaguna markiiba ku sugnaa dowladda goboleedyada markaas xamar ku sugnaayo ayaguna abuuray soo dhawahay xaqiiqdii marka waxaan moodaa hadda hamikii ka balaaran maadaama heer federaal iyo heer state ba in aragtidii in waxaad moodaa ay gadantayba waxaa jira deegaano badan oo aad geedyo ka abuurteen cadaada ka mid ah meelaha ololaha xooga sida xooga aad ururka uga shaqeynay oo anigan ba aan soo arkay aad iyo aad xagee bay marayaan ololahaas iyo imise deegaanaas gaarsiisan ololaha waa ma santaa wariye xaqiiqdii waa sax sheegtay ayada waa meelaha aan ka bilownay meelaha aan gaarsiinay waxa kamid ah tuulooyin badan oo ku xirsan waxaan kaloo aan rabnay inaan u gudubno sida ogtaa horta markii la yiraahdo daadajin markii la yiraahdo in deegaano badan la tago state-kii aan ku nool oo hadda maamulkii guud wali waxaan moodaa inuu hadda ku jiro daadajintii uu meeshii 100% isu wali gaarin anagii waxaan organization cid hadda contribution garayda oo fan ugu bixisana ma jirto annagoo hanka ka jecel oo hankeena u jeeday inuu Galmudug cagaaran yahay haddana waxaan moodaa login time waxaan ugu qaadanayaa gaaritaankeeni waxaan hataa marka qaar isku daynaa meelo fog inaan dadka qaar inta u dhiibno 20 geed 15 geed dadka degan inaan raano war maaragtay geeyo ku abo degmooyinka qaarna inaan dhalinyaro inta waxaan noon raano is abaabula organizationka ku soo biira halkaas ka bilaaba ololaha cagaarinta ka bilaaba marka ayadoo hadda waxay maray meel fiican fiyaalaha laamiga waxaan ku bilownay ilaa 100 geed iskoolada iyo danta guud aan tagnay waxaan hadda rabnay inaan ayadana dhireyno xaruntii X madaxtooyadii cadaado oo Galmudug hore ugu shaqeey jirtay oo ayaduna hadda markaan dhirtii qayb kamid ah weyn oo balaaran lagu daray inaan ayadana dhireyno sidaas oo kale meelaha danta guud oo ugu muhiimsan inaan ayagana aan joogteyno sida hadda safarkan ba aan dhusumareebna u rabo inaan
xarunta degmada iyo meelo badan aan booqdo dhalinyaro badan oo tiimka hadda aan dareen ka sameyn aan raano aan ku dhigelino dhalinyaradii way joogaan tiimkana way aad bay ula dhacsan yihiin marka inaan ayagiina si aan niyadda maaragtay aan aad ugu shilisno shaqadan waa shaqo aad u culeyskeeda leh waxa caqabadaad kala kulanteen ma jira ama santa fiyaad shaqadan culeyskeedan waxay rabaa inaan bulshada tusiyo hadda waxa dadku hadal hayaan in mashruuca Soomaaliya cagaaran oo madaxweynuhu daafuray in geedo inta la iska soo raro maamul goboleed la geenayo horta geedku wuxuu u baahan yahay xanaaneyn hadda galmudug tusaale barnaamijka uu ku soo socdaa waxa marka ugu muhiimsan maadaama wasaaradda bey'ada iyo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba joogaan waa aragtay geedku marka wuxuu u baahan yahay god in la qodo متر يا بطل ما متر جدا يلقاه. وليه من هذا؟ ها وبهاي هي إن أنا قلت لك إنه أنت بدنا عليك بعد. لو متر وكسر كلام متر برجيتكم. وبهاي إن كفر لو يحرب بلوكيت سلك هوا عرفتي أنا حول لقطنا. حال إذا أنت بدنا درت يحوله وحيسكويهين عكسي يسكويهين. ما دام قلم تقول لي هذا رجال مدقوا حول لقطه حدين مثلا درتي وبعدين ودرتي لقوا مرمان أي تحي ودرتي إيش شرتو جهولي وعرفتي مجال دي جوجان. سلوا الشمك وبهاي حين ضب. حيندابكاس oo asoo ku kacaya qarash hadhowtii wuxuu u baahan yahay joogteyn markuu bil joogo in la cadagadiyo oo geedkii loo sameeyo bacrimin waraabkuna waa bashan bariile ama waa afar bariileba tusaale qof geed lagu qaadan geedaha qaar aan abuurnay aan ku abuurnay hada cadaado waxaan waraabinaa annaga asxil saarna tiimka ururka asbuuciiba laba qof ku qoran oo geedaha waraabida ugu marka in geed la waraabiyo oo 5 bilood hada waraabka ku socdo wax uu qofkaas uu ku qaadanayna aan la arkin dhaqaale ah waxa dareemi kartaa waa rag maaragtay culayskeeda leh waxaan marka rajeynaynaa anagoo ah ka dalad urur bilcishii cilmi ahaan dawladda galmudug iyo heer federaalba waliba aan rabinaa codsiga halkan uga diro iyo wasaaradaha deegaanka oo wasaaradda bey'ada oo xal saaran si geedahaas iyo mashruuca cagaarinta guud Soomaaliya gaar ahaan galmudug oo cagays ugu istaago tiimka isxilqaamay oo waqtiga galiyay oo hadda itus itaabsi ah oo loo jeedo geedihii ay abuureen oo ay waraabinayaan abuurkooda socdo in lagu dhiirigeliyo ayagana loo dhiibo hadiiba mashruucaas cagaarinta uu state ka yimaado in la yiraahdo adinku shaqadaas waa leen kula xisaabtamaya waadna wadeeni hore u sii wada way si shaqadii ay noqoto wax ku ool shaqa baa dhal asay noqoto way bulshada ku daawanaysa ee ka fiirsanaysa barnaamijka fiyaada faqara aadiyaad fariinta aad la wadaagaheed maxay tahay oo ma san tahay bulshada ku xiran barnaamijka fiyaada iyo faqaraha xaqiiqdii waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa dareensantihiin wax ku oolnimada ay dhirtu leedahay anaga hadaan reer galmudug waxa jira barnaamij aan u arkaanay inuu hagardaama yahay laakiin dadiyo beeraley oo inta badan qudaarta noo soo dhoofi jiray iyo dalagyada waxay waa xoogaa in ay xataa ani waa ay isticmaalaan ma aqaan laakiin barnaamijka gal waxa in la yiraahdo galmudug waa meel dhagax ah oo dhul aad u qalalan yaan la isku lugoyn beer iyo dhir iyo cagaar iyo waxaas maaragtay sidoo loo niyadjiyo qofku marka ugu yaraan dadkii waxa loo dilay si moral ahaan waxaan leeyahay marka galmudug waa meelaha ugu wax soo saarka badan markii la yiraahdo xagga beeraha hal ciladaan ugu jirto waxaan rabnaa degdeg aan ugu jiro beeruhu iyo dhirtu waxay u baahan yihiin waqti in la galiyo geedkan markaad beerto geed miroodyada hadda waliba ugu badan oo in la beero anaga aan dhiirigelino waxa kamid ah saytuunka liinta babaayga cambaha dhammaan geedahaas oo dhan in xataa xaafadaha lagu beero si guri kasta uu u noqdo guri wax soo saar oo asagu guri ay wax ka soo baxayaan waxa marka aan dhihi lahaa bulshada dalada guud ee ururada bilcishii inta degmo kasta ah inay iyadu dhiirigeliso aliyo waxaan dhihi lahaa maayarada degmooyinka inaad dhalinyarada ku dhiirigelisaan inay ururkan ka mid noqdaan ayagoo uga faa'iideynaya awoodooda oo degmadiina tusaale maamulkaas marka jira oo dawladda hoos u jirta waxay u baahan tahay dad kula shaqeeya si volunteer ah organization-kuna waa organization aan marka hore biyori one ahayn oo dhaqaale sameeya aan ahayn ee ah in uu ka shaqeeyo cagaarinta deegaanka iyo horumarinta waxaa marka leeyahay nala contribution gareeya galmudug oo dhan maanta waxay saaran tahay hal doon state ku waa socda hogaamiye la oran karo
galmudug waa hadda macal hogaamiyadeedii mas'uuliyiinteedu waa isla jaan qaadayaan aan ka dhalinyaro ahaana aan inta u istaagno horumarka annaga iskale annaga u harayna wadanka annaga joogno dhalinyarada waxa la yiraahdaa mustaqbalka bariya inkastoo ay dhalinyaradu tahay mustaqbalka maanta iyo bari ma mustaqbalka maanta iyo bari soo dhow aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa Cabdinuur Ciise cilmi oo martin ugu ahaa barnaamijka Fiyaada Faqaraha intaas ayaan ku soo koobinaa barnaamijka Fiyaada Faqaraha Cabdinuur mahadsan tahay aad iyo aad